laba musharax oo kala ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed. xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay sheekh shariif sheekh axmed wuxuu helay 79 cod. xasan sheekh maxamuudna wuxuu helay 190. si rasmi ah ugu dhawaaqaya in mudane xasan sheekh maxamuud uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. mudane gudoomiye ku-xigeenada madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya. xildhibaanada sharafta leh, wasiirada, ambaasadoorada, saraakiisha ciidamada, bahda saxaafadda, dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, farxad weyn ay ii tahay caawa in magaalada muqdisho ay doorasho ka dhacdo si xur ah oo xalaal ah 42 sano kadib. farxad weyn ay ii tahay xilligii koobnaa ee 3 sano iyo barka ahaa in dalku uu soo gaaray gudihiisa inay doorasho ka dhacdo. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rabaa inaan ugu hambalweeyo walaalkay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya guusha halkan uu ka gaaray. waxaan rabaa inaan caddeeyo natiijada doorashada inaan u hoggaansanahay, xaq ay tahay, ku qanacsanahay, kuna shaqay doono. waxaan ka baxayaa saaladan ama qolkan anoon cuqdad qabin oo gacan laygu siiya shaqadaydii, aaminsan inaan soo gaarsiiyo dalka maanta inuu ka baxo ku meel gaar laguna doorto madaxdii qaranka caasimadda Soomaaliya. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan u maleynayaa munaasabadan kuma habboona hadal dheer in laga yiraahdo, laakiin waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo. halkan waxaa taagan saraakiisha ciidamada, waxaa taagan agaasimihii hay'adda nabad sugidda, waxaa taagan taliyihii ciidamada xoogga, waxaa taagan taliyihii booliska Soomaaliyeed, dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida. saacadaas laga bilaabo si uu amnigu uusan u naqanin wax la isku haleeyo, waxay ka amar qaadan doonaan madaxweynaha hadda la doorto. aniga oo og xilka rasmiga inuu wareegayo dhaarta kadib, laakiin taas waxaan u yeelaa inaan fursad loo siinin cid kastoo amniga ku ciyaaraysa. mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu helay 97. mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu helay 184. saa daraadeed maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah. waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo. waddo dheer oo maxaanku idhahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday. howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen. waddadii dimuqraadiyadda ayaanan soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah la isku weydaarsado ayayna soo gaarsiisay. waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay maxamed farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya.
maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay hambalyo. kursiga nabad iyo dimuqraadiyad inuu uga tagayo macal gaaladii ayaa ku sheegaysa ka walsan waxay ku leeyihiin no kuwa Soomaaliya dirsan marka hadda soo arkay aan ku soo arkay Norway soo Oslo way yaaban yihiin no ay ku leeyihiin samarka marka adoo